haweenaydan su-aasha weydiinaysa doctor zaakir naayik waxay isku dayaysaa inay nebiga salaallahu calayhi wasalam afkeeda ku taagto ama yaxayso iyadoo ku sheegaysa in israa ama dheelmintii nebiga salaallahu calayhi wasalam ay ahayd been cad sidoo kalena waxay leedahay beentaa cad ilaa hadda dad baa rumaysan quraysh xitaa sidaas ay nebigu u caayeen oo waxay dhaheen waxaa tahay beenlow sidaa daraaddeed waxay ku soo celcelinaysaa ereyga been oo ay leedahay taasi waxay ahayd been cad dadku maxay u rumaysanayaan weerar ay ku qaadaysaa laakiin cashir ayaa loo ila dhagayso jawaabta Dr. Zakir Naik. Do you believe in that? Just because of lie, we have so many issues in that area. Why do you Muslims believe in such a blatant lie, told by the Muslim in Muhammad? It is very clear that he couldn't travel to the Jerusalem overnight. adiga waxaad weydiinaysaa maxay muslimiintu u beensanayaan ama isugu khilaafayaan dhacdadii Israa iyo Mi'raaj soo sida ma aha waxay leedahay maxay muslimiintu u rumaysan yihiin beenta Nabi Maxamed sheegay ee ah in laga dheelmiyay Makka loo dheelmiyay Qudus haddii Maxamed yahay shakhsiga ugu wanaagsan muxuu beenta dadka ugu sheegayaa sidaas ay leedahay walaashay Kirishtaan miyaa tahay waxay tiri waxaan aaminsanahay fikirka xorta ah hagaag Baybalku wuxuu leeyahay in Nabi Muuse calayhi salaam uu badda kala jeexay Nabi Muuse baddu kala jeexay waxay leedahay iga raali ah mar rumaysni Baybalka sidaa darteed iguma qancin kartid jawaabtayda ma dhammayn walaal jawaabta aan kuu dhammeeyo kadib baad hadli kartaa waxaan rumaysanahay in nabiyadu ay mucjiso la imaadeen waxaa lagu sheegay quraanka suuratul Israa suurada 17aad aayada 1 in nabiga sallallahu calayhi wasallam la dheelmiyay waxaana laga waday Makka ilaa la geeyay Masjidul Aqsa oo Qudus ku yaala markaasaad leedahay maxaan beentan u rumaysanahay taasi waa mucjiso fikirka xortaad aaminsantahay laakiin anigu sidaa maahi anigu waxaan ahay muslim waana farqiga inoo dhaxeeya aniga iyo adiga maxaan muslim u ahay waxaa qasab ahayd inaad imaato muxaadaradeedii shalay ee aan ku sugayay jiritaanka Alle fikirka xortaad aaminsantahay yacni ilaah ma aaminsanid sax shalay mawduuceegu wuxuu ahaa ilaahay ma jira mana rabo inaan hadda mawduuciyo dhan ku soo celiyo sababta wuxuu qaadanayaa saacad iyo bar sidaa darteed shalay haddaad imaan lahayd maanta waxaad ahaan lahayd mid ku qanacsan jiritaanka Alle iyo sidoo kale quraankan inuu yahay hadalkii Alle su'aashaad markaa u nimaano qof bashar ma u suurtageli kartaa inuu Makka ka tago Qudusna tago hal habeen oo kaliya xitaa aniga iyo adigu waa samayn karnaa diyaaradan raaci karnaa balse xilligaasi diyaaraduhu ma aysan jirin ka dheelmintiisa Makka ee loo dheelmiyo Qudus waa mucjiso waxaa jira in badan oo mucjisooyin oo quraanka lagu sheegay tusaale ahaan Nabi Muuse calayhi salaam badda ayuu kala jeexay waana mucjiso Nabi Muuse calayhi salaam wuxuu tuuray ushiisay wuxuu isku bedeshay mas taasina waa mucjiso waa maxay mucjiso waa arrin aan la fasiri karin cilmi ahaan iyo caqligal ahaan mucjisadu waa arrin ka weyn awoodaha dadka caadiga ah sidaa darteed hadduu qof caadiya sameeyo arrin aan saynis ahaan iyo cilmi ahaan la fasiri karin iyo caqligal ahaanba waxaa lagu magacaabaa mucjiso haddaan micnayn karna caqligal ahaan midaasi maaha mucjiso waan ka safri karaa Makka waxaan u safri karaa Qudus hal habeen oo kaliya midaasi mucjiso maaha anigu waan samayn karaa sidaad u samayn kartaanba laakiin xilligii nabiga waxay ahayd mucjiso ahayd arrinta nagala rabo inaan ogaano waxay tahay ambiyada Ilaahay Allah waa abuuraha koonka iyo dadka rag ayuu ka doortay basharkaasi si ay u gaarsiiyaan fariintiisa dadka kale raggaasi la doortayna waxaan ugu yeernaa ambiyadii iyo rasushii Alle Allah wuxuu soo diray tiro badan oo rusula 25 kamida magacyadooda waxaa lagu sheegay quraanka Aadam Nuux Ibraahim Muusa Ciisa Muhammad dhammaantood baa Allah subxaanahu wa ta'aala laakiin kii ugu dambeeyay waa Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam tani waa mucjiso tusaale ahaan quraankan shalay waxaan jeediyay muxaadaro liira ilaahay ma jira waxaana ku sugay in quraankan uu ka kooban yahay wax ka badan 6,000 oo aayadood wax ka badan 1,000 aayadoo kamidana waxay ka hadlaysaa waxa dad u ogaadeen aragtida qaraxa wareegsanaanta dhulka dayaxu inuu yahay mid ku dhaca wareega qorraxda waana wax aan ugu baran iskuulada
waxaasoo idil waxaa lagu sheegay qur-aanka 1400 sano ka hor saynis ahaan ma jirin cid fasiri kara aragtida qaraxa weyn ee kitaabkan ku jirta laga soo bilaabo muddo 1400 sano lama ogaan ilaa ka hor 35 sano ama 40 sano waa mucjiso sidee noogu suuragelaysaa 1400 sano ka hor inaan ogaano in qaabka dhulka uu yahay sida kubadda oo kale waa mucjiso markaan iskuulka dhiganayay waxaana la baray in qorraxdu ay sugan tahay oo aysan ku wareegaynin booskeeda quraanku wuxuu noo sheegay in mixwarkeeda ku wareegaysa sidee arrintaasi ku sugan gashay waa sidaasoo kale waxa quseeya biology-ga cilmiga urkujirta cilmiga geedaha waxyaabaha saynis ahaan la daah qaaday ee la ogaaday 50 ama 100 ama 200 ama 300 sano ka hor waxaa laga helayaa qur-aanka muddo ka badan 1400 sano ka hor yaa sheegi kara arrintaas abuuraha waxaan ugu yeernaa allah subxaanahu wa tacaala haddaba dheelminta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam laga dheelmiyo magaalada maka loo dheelmiyo masjidul aqsa oo ku yaala qudus waa mucjiso arrintaasna waxay sugaysaa inuu yahay nebi xagga alle ka yimid annagu ma samayn karno mucjisooyinka nebiyada oo kale mucjisooyinku waa arrin uu allah subxaanahu wa tacaala ku socodsiiyo gacmaha ambiyadiisa waxaan rajaynaynaan su-aashaada ka jawaabay waxay leedahay haddii ilaahaagu yahay midaadu weyn muxuu caalamkao dhan ugu bedeli waayey ummad wada muslim ah for the world into the Islamic nation and why don't you just snap the fingers and tell the world and turn it into Muslims then you don't have to fight walaashu su'aal wanaagsan bayna weydiinaysaa soo gaabi walaal su'aasha walaashu waxayna weydiisay su'aal aad u wanaagsan muxuu ilaahay caalamkao dhan ugu bedeli waayey ummad wada muslim ah jawaabta arrintaasi qur-aankay ku jirtaa allah wuu ogaa inaad su'aashaas qabtid waxay leedahay ma aaminsani haddaba maxay jawaabta hore ugu jirtay waxay tidhi waa kadis in badanoo kaa horraysay su'aashaa way soo rideen allah subxaanahu wa tacaala wuu ogaa iyaga iyo adigaba inaad su'aashaas qabtaan allah wuxuu ku leeyahay qur-aanka suuratu yuunus suuradda 10aad aayadda 99aad haddii uu rabbigaa doono waxaa rumayn lahaa dhammaan waxa dhulka ku sugan ee ma adaa dadka ku qasbi kara in ay xaqa rumeeyaan sababtoo ah allah wuxuu abuuray dad kala duwan oo makhluuqaadka ah dhammaan abuurkaasi marka laga soo reebay insiga iyo jinka dhammaantood ma lahan doonis xor ah haddii dhammaantood ay adeecaan amarada alleh waxay noqon doonaan malaa'igtu ma lahan doonis gaar ah waxay adeecaan dhammaan wixii alle subxaana wa tacaala amro allah subxaana wa tacaala wuxuu abuuray abuur kale oo ah basharka waxayna leeyihiin xorriyad adeecid ama xorriyad caasin haddii allah dhammaanteen naga dhigo kuwo adeecsan yacni muslimiin markaasi waxaan noqonaynaa sida malaa'igtoo kale haddaba aawo imtixaankii allah subxaana wa tacaala wuxuu abuuray abuur gaar ah oo xorriyad leh waa la imtixaanayaa ama allay adeecayaan ama way caasinayaan waa kaasi imtixaanku tusaale ahaan marka macallinku doonayo inuu imtixaan siiyo ardadiisa haddii ardaydii qaataan kitaabkii imtixaanku ku yaallay oo ay jawaabihii ka guursadaan si toos ah haddaba aaway imtixaankii waayahe imtixaanku wuxuu yahay ma muraajaceeyaan oo ma raacraacaan casharada macallinku baraya mise maya haddaba noloshan waxaa lagu sheegay qur-aanka suuratulmulk suuradda 67aad aayadda 2 alladii khalaqa almowta waalxayaata allah waa kan abuuray noloshan adduunya tan aakhiraba si uu idiin imtixaano keeniibaa samaynaya camal wanaagsan walaal noloshan adduunyadu waa imtixaan loo gelaya daarta aakhira allah wuxuu ku yidhi suuratulbaqara suuradda 2 aayadda 100 waxaan idinku imtixaanaynaa wax cabsi ah iyo gaajo iyo nusqaamin xoolaha iyo nafta iyo midhaha xoolihiinna iyo carruurtiinnu waa fitno ibtilo ama imtixaan haddaba walaashay dhammaan waxaani waa imtixaan noogula talagalay su-aashaadna weydiinaysa iyo wax lamidaba waxaa lagu sheegay qur-aanka allah wuu ogaa adiga iyo dad lamidaba in ay su-aashaas qabaan isla sababkaas alla wuxuu naga yeelay inaan dhex dabaalanayno imtixaankan ma allaan adeecaynaa mise waan caasinayna waxaan rajaynaynaan su-aashaada ka jawaabay su-aal bay soo weydiin rabta wakhtiga dhan bay qaadanaysaa marka waxaa loo sheegayaa inay daabuurka ay u soo noqoto kadibna fursad saddexaad baa la siin doonaa si ay markaa su-aashay rabto 1 iyo 2 iyo 3 ay u weydiiso doctor Zakir Naik laakiin wayba carartay waa mahadsan tahay iga raalli ah way sii gabagabaynaysaa